نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة في الله، waxaynu insha allahu tacaala ka hadli doonaa mowduuc la xiriira sababaha Allah subxaanahu wa tacaala uu qofka ugu siyaadiyo risqiga uu siinayo, sababaha Allah subxaanahu wa tacaala uu addoonkiisa ama addoontiisa ugu siyaadiyo risqiga uu siinayo. waxa badatay dadku inay ku raadsadaan risqiga wujuh aan yani xalaal ahayn, meelo badan oo Allah subxaanahu wa tacaala aan raalli ka ahayn, khaasatan dadka wadamada qurbaha jooga. qofkana waxa fiican in ogaado in Allah subxaanahu wa tacaala u qoray irsaaqadiisa, waxa qofku cunayo, qofku wuxuu helayo, ilaahay subxaanahu wa tacaala u qoray. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku leeyahay: ina ruuxa alqudus nafatha fii rawci أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. رواية كلا وحي لهي حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. نبي عليه الصلاة والسلام وحي لهي جبريل با وحي إيشيغي وقلبي يقول فوق إيشيغي إني النفط مرنا جيريونين نفي مرد منيسه إلى أي رزقك الله سبحانه وتعالى يا أجش الله سبحانه وتعالى أقري ay dhamaysato. qofka muslimka ay marka waxa la doonayaa inuu ogaado inta uu nool yahay adduunkan ka faaruqi maayo oo ka tagi maayo oo dhiman maayo ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u qoray u hela mooye. wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska ku leeyahay: fattaqu llaha wa ajmalu fi talab. war ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada oo risqiga markaa raadinaysaan, habka risqiga u raadinaysaan hagaajiya, maadaama Allah subxaanahu wa tacaala kuu qoray, maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu meel kuu saaray risqigaaga inta aan nooshahay oo aadan geeriyoonayn, aadan dhimanan ilaa inaad dhammaysato risqigaagii iyo ajashaadii mooyaane. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay: risqiga oo idinka daahay yay idinku xambaarin inaad macsida Allah subxaanahu wa tacaala ku raadisaan, alla meeluusan raalli ka ahayn inaad risqigii ka raadisaan, yayin daahiddu idinka daahay risqigu idinku xambaarin. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska wuxuu leeyahay: فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة. إلهي سبحانه وتعالى أكتيس وحيا لقم جاره إلا داعة الله سبحانه وتعالى مويه. marka waxa rabaa in qalbigaagu uu ku jiro oo aad ogaato in ilaahay subxaanahu wa tacaala risqiga uu ku qoray aadan marnaba maaragtay ka dhiman ilaa inaad dhamaysato mooye. marka inaad ka sii fikirto oo ku raadiso meel xaraana waxa weeyaan arrinka isaga looma baahna. geerida marka laga hadlayay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu xadiis ku leeyahay: low anna ibna aadam, haddii ibna aadamku haraba min risqihi uu risqigiisa uga carari lahaa kamaa yahrabu min almowti, sida uu geerida uga cararo oo kale. waa aragtay qofku markuu xanuunsan yahay geerida uu ka cararayo cusbitaal buu aadaya, kan ha lagu tufo, quraan ha la sameeyo, quraan ha la saaro, waxaas waxa weeyaan geerida lagala cararaya. sida aad geerida uga cararaysid oo kale haddii ibni aadamku uu risqigiisa uga carari lahaa, wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay: la adrakahu risquhu kamaa yudrikuhu lmowt. risqigaa soo raadsan lahaa, risqiga ayaa soo raadsan lahaa sida ay geeridu ugu soo dabagasho u timaado qofka ugu timaado.
لأنه واحد أقنهاي geerida qofku meel kasta uu tago geeridu qofka waa ugu iimaanaysa nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay qofku meesha uu ku dhiman lahaa ilaahay baa dan uga yeela marka qofku meeshii buu tagayaa isla meeshii ku geeriyoonaya risqiina sidoo kale way hadii aad ka tagto meel kasta aado risqigu isaga ku iimaanaya oo ku soo dabagalaya marka inaynu ogaano baa fiican risqigan iyo ajashan ba Allah subhanahu wa ta'ala baa noo qoray marka waxa la rabaa in wanaag lagu raadiyo oo aan xumaan lagu raadin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa fis samaa'i rizqukum wama tu'adun samada waxa ahaaday risqigiina iyo wixii maaratay Allah subhanahu wa ta'ala yabahay ilaahay baa ballan qaaday risqiga aynu cunayno nooc kasta noqdo risqigaas waxa loo bixinayo dhamaanteed weeyaan han noqoto caruurtii lagu siinaayay hal loo noqoto raashika cunaysay han noqoto caafimaadka kulli Allah subhanahu wa ta'ala ayaa qoray weeyaan قراءة القرآن كذا آخرنا وفي السماء رزقكم واحد جرى قراءة كلا شهادة ولكن استشهاد هان لدليشده وحل هذا وفي السماء رازقكم كر واحد جرى إلهي سبحانه وتعالى إن إرزاقي إلهي إن إرزاقي أي كر جرى مرك الله سبحانه وتعالى استجا أي إرزاق قد قيبي وضد كسية وحولي الله سبحانه وتعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وحتى هذا محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى برزقك قيبيه الله سبحانه وتعالى برزقك فديه لمن يشاء ويقدر عد دونه فديه عد دونه كعريريا إلهي سبحانه وتعالى إسقى قيبيه إرساقد قيبيه قف كان بو كعريريا وwaxa laga yaabaa qof kaan muddo inuu saxba soo galin qof kaan waxa laga yaabaa meel uu kala dhigay inuu waayay ومع ذلك عافمادka lamid weeyaan qof kaan ba arkaysa waligiis inuu san caafimaad helin oo ma taqaana caafimaad ba uusan haysan qofkana waxa laga yaabaa inuu muddo waliga caafimaad isaga jiro waa xigma Allah subhanahu wa ta'ala weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala xigmadiisa way ilaahay qof walba uma waayin irsaaqad inuu wasiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala qof walba uma waayin inuu caafimaadka wasiyo dadka dhan caafimaadku ka similaha laakiin qof qolana caafimaad baa la siiyay qolana waxa la siiyay ma taqaana caafimaadka laga qaaday qolo risqi baa la siiyay qolana waa laga qaaday ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa iska leh bal nabiga kaleey salaatu wasalaam حديث بوح كل إن لله عبادا يخصهم بالمال إلهي سبحانه وتعالى أدوم ليه حديث صحيح ويان حديث كان صحيح ويان في واحد كان صحيح جامع صغير كي كتب تمارتي حديث سنة كله صحيح وحول ليه إن لله عبادا يخصهم بالمال إلهي وحول ليه هي أدوم ليه وحو خاص وقد جاي مال بو خاص وقد جاي يجا خاص لوسي لمنافع العباد إني أدوم هذا واحترام بالله marka nabi wuxuu leeyahay hadii ay sida sameyn waayaan ilaahay wuu ka wareejinayaa wuxuu siinayaa qolo kale ayuu siinayaa adoomada wax ku tarta marka waxa lagu fiirinayaa imtixaan weeye alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ilaahay subhanahu wa ta'ala ku imtixaamaya adiga caafimaad taam ku siiyay qofkaana caafimaad waxa laga yaabaa inuu cusbitaal sariir bajiifaba muddo 10 sano iyo ka badan ilaahay subhanahu wa ta'ala ma aha macnaheedu Allah inuu adiga ka jecel yahay qofkaan isaga ah ma aha macnaheedu laakiin waa lagu imtixaamayna waa tawayaan إرزاقنا مرك الله سبحانه وتعالى باقيبيه وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام مرك ورمايه إلهي سبحانه وتعالى إرزاقنا مرك وقيبنا إنه سن الله سبحانه وتعالى مرنا وح أكتس يلا مرنا قرين وأن يدك شتى الله سبحانه وتعالى باكو إرزاقيه وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام يد الله ملأ إلهي سبحانه وتعالى سبحان الله إلهي قعنتي سوي بحذا إلهي سبحانه وتعالى قعنتي سوي بحذا لا يغيضها نفقة بحيتانك وح بحناينا الله قعنتيسا مرنا ما نسقامنيس إلهي سبحانه وتعالى وحيه وحو بحنايه مرنا ما نسقامنيس ويان وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي سيده وحلي سحاء الليل والنهار هبين يمالن الله سبحانه وتعالى وبحنايا وشبريا وصينيا كانوا عافمات سينيا كانوا إرساق سينيا قوم تقانا انتهاس أو خلقي الله سبحانه وتعالى إرساق سينيا هبين يمالن الله سبحانه وتعالى وقيبنايا مركو حول النبي عليه الصلاة والسلام أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه إلهي سبحانه وتعالى إيجا إرساقده وبحنا يلقصه بلا ما أنتو عركان لك أبو ري وح الله سبحانه إلى ما أنت لا يجاري إلى إلهي سبحانه وتعالى الكون كان الله بيو بابينا يو إلهي سبحانه وتعالى مرنا أكتس وحي لا نسقى مايا ساسو بحنا سبحان الله إلهي سبحانه وتعالى سأوح بحنا إرساقنا مركز راسنا ولا يال أينو ملف عن كراسنا ماشى كشقين يسد خاصة ذاتك جوجا قربها جوجا ماشى كشقين يسوينا أسكفير سويا
lacagta soo qaadanaysa inaad iska fiiriso weeyaan nabiga calayhi salaatu xadiis wuxuu ku leeyahay in allaha subxaanahu wuxuu leeyahay لا يزال قدم عبد حتى يسأل عن أربع إلهي سبحانه وتعالى هرتيسا كدقاق ميسيت nobody oo ka dhaqaaqaya Allah subhanahu wa ta'ala ma jiro ila afar waxyaalo lagu weydiiyo afar waxyaalo ila ilaahi subhanahu wa ta'ala hortiisa lagu weydiiyo ka dhaqaaqi mayso nabiga kaleey sallallahu wasallam waxa kamid ah wa an maalihi min ayna iktasabahu wa min ayna anfaqahu maalka qofku meesha uu ka soo qaato waa lagu weydiinaya meesha ku bixisna waa lagu weydiinaya meesha ku bixisna weydiinaya oo wax ku yaala weeyaan marka inaynu saaqada in raasanayno meel fiican walaal ku doonano ilaahi subhanahu wa ta'ala hada ilaahi dartii hada uga tagto meel maarta xumaan iyo mataqaana dambi ka soo galaya saaq ka soo galayso hada ilaahi dartii uga tagto ilaahi meel fiican buu kugu bedelaya oo anigaygaasi waxaan arkay nin baa wuxuu ugu yiri aroos anigoo ah magaalada hadda aanu joogno oo Minneapolis wadanka Mareykanka la yiraahdo wuxuu yiri aroos buu ahaa asbuuci markuu ka baxay ayuu shaqo raadsaday meel baa shaqo la geeyay shilna ma haysto aroosna waa shaqadii markuu tagay wuxuu ugu tagay cunta lagu sameeyay cunta doofaar baa ku jira waa 1999 ka weeyaan markaas wuxuu ku yiri war anu waxaan ka shaqeyn maayo doofaarada ku jiro diintayda ma ogola xilligaana Soomaalida iyo way iska cusbaayeen waxa lagu yeerinayo waa waalantahay shaqeyso bay gaalada yiraahdeen ma shaqeysanaya iska baxba laga yiri marka shaqadaas asbuuci wuxuu ka heli lahaa $250 buu ka heli asbuuci shaqada ayada wuxuu yiri ilaahay dartii baan uga yimi markaan guriga imi ayaan company aan shaqo ka buuxiyay soo wacay oo yiri shaqada soo gal maalinta isniinta ah company-ga isaga ay maalintii asbuuci waxaan qaadanayay $1200 company aan ka soo cararana asbuuci waxaan qaadanayay $250 baan qaadanayay ilaa $700 kan damo oo aan helana waxaan qaadanayaa buu ilaa $1500 wiiga qaadanay 12 saac shaqeynay maalintii bal fiir ikhwaani Soomaaliya ilaahay darteeda uga tagto ilaahay subhanahu wa ta'ala marna waxa weeyaan ku qadin maayo waqtigu waa yar insha Allah waxaan u galayaa asbaabaha qofka u siyaadiya irsaaqada Allah subhanahu wa ta'ala u siyaadiyo anigu insha Allah ta'ala dul maraya waqtigu aad yahay waxa kamid asbaabaha iyada horta cibaada ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadaysano wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ilaahay wax kale kuma abuuranba ilaahay subhanahu wa ta'ala wax kale kuma abuuranba mar walba ina cibaado ku jirto weeyaan Allah subhanahu wa ta'ala cibaadaysan الله سبحانه وتعالى إن عبادة سنة مر بين وياه الله وحكوا أورت وحكى لهم عبادة سويان مركز دي عبادة سته واحد وقتها إن الله سبحانه وتعالى سقط كوسي هذا لأنه قفك الله مركز نورسي الله إسكمان نورسي فرح كما قادر أيحسب الإنسان أن يدرك سدى الله سبحانه وتعالى وإنسانكم وحهم ملينا إن فرلقات ونقنايو أو إسكسي دينايو أو تكاليف الله صارن إن عبادة سنو مركا عبادة ستو الله سبحانه وتعالى وكوسيدنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحليه هي من كانت الدنيا همه قفك أي نقطة الدنيا دان وهمه سيفكر كيسا وهذه الدنيا دان كفكريه فرق الله عليه أمره إلهي سبحانه وتعالى بأرهمين سكرك حينيه مد وقموايسا مركا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وحو كدري وجعل فقره بين عينيه إلهي بوحو دقايا إنديه سهرته وحو دقايا فقريس قف كاسي سكة صحته أو شقف يعمله له هدو عبادة لجوايه وحبة ترمسه قف مرب بوحوية باهبة كتاجا وحول ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له الدنيا ذن أكور ديانا أو إيمان مسبا إلا وحي الله قرما يحكي له إيمان مس مركين عبادة سنو الدنيا كجلسته وإلهي سبحانه الدنيا أنت لا يعتق لك قاته أنت لا يعتق لك إنك قاته ويا نبي مركو حول يسوع سيوده ومن كانت الآخرة بنيته قفك أي نيدي آخرته هاته أو هذه يجور حتى مركو شقي سنايو إلهي كحرا أو هذه يجور نيدي سأي تهاي إنه متقانا الله سبحانه وتعالى كحرا يهاي أو صلاة كفكريه نبي حديث بحنو الشيخ يوحلي هاي تطبقوا في أمانة قيامه وحل قلنا هر لقلنا محا كجري رجل قف بقى كجري قلبي يسوع ومساجد كحرا يهاي محا لقى وضع ظهر بوت كذا وبحي مركزوا لي عصر كمان لقاري وصون غنايا عصر بسوت كذا وصوبحي المغرب كمان لقاري بلي وصون غنايا قفكاس قلبي يسوع كحرا مساجد كويا عبادة الله سبحانه وتعالى مركو حول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كانت الآخرة نيته أو بنيته قفك أي نيدي سهاته آخرة وهاته جمع الله له أمره إلهي بأرنك سؤور رنايا إلهي سبحانه وتعالى بأرنك سؤور رنايا مركز لي النبي عليه الصلاة والسلام وجعل غناه في قلبه إلهي بقلبه يسوي قلنا يا غنيمنا قلنا يا الله سبحانه وتعالى وإلا وحليا وآتته الدنيا ذن وحي إيمانيسا وهي راغبة وفرس الدنيا يدا كعرفت إذا بكو إيمان سويان حديث كروايات كلام وحي لهاي نبي عليه الصلاة والسلام وحي حديث قدسي ويان يقول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وحي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي عبادتي
يعني أفارق نقو عبادة ذي أفارق نقو وقعنا مرنو عبادة ذي إيه عبادة يسوع ما حد دعاية دانكو عبادة يسوع أملأ صدرك غنى قلبي قاعد غنى كبوحنايا قلبي قاعد أيها غنى كبوحنايا وأسد فقرك وحنا قرنايا وبابينايا فقرك وهي ما بينايا هو في الصدر وحلي مك النبي عليه الصلاة والسلام وإلا تفعل ملأت يديك شغلا هذا ساس من ويدو وعبادتي بدين ويدو هرت هذا وحن كارجا يقف مشغولا كارجا قف بوعي صاد مثلا وحلا ورنيه وهوشاس مساجد محاضرة جديمة وحول ليه إنه مشغول بان هايو وحيب الباقو تاجن جلاس باقو تاجن كنا باقو تاجن سبحان الله إلهي سبحانه وتعالى بقف مشغول خارجي الله النبي يقول لي مركا النبي يقول فخري أنا مأوداي مركا إني عبادة السنة وحيالها الله سبحانه وتعالى ارتقدنا نقول بدناي وحكم إذا وحيالها الله سبحانه وتعالى رزق نقول بدناي استغفارته الله بديه استغفارت إلا بديه ويا سيد علو بدو ليه يقول كقاضنا إياه كتابك الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وحول لي هاي أول دلشنا يا إلهي سبحانه وتعالى قرآن سوح كل يا فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن الله تما استغفار يا الله سبحانه وتعالى وتوبة كنته أو حياة قفك إرساقات أسمى سويا وحول الله سبحانه وتعالى وح كتر هذا نبي الله نوح بلغها الله نبي الله نوح بلغها الله ومديسي وحد كتر هذا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ولله سبحانه وتعالى استغفار لا إمادة والله سبحانه وتعالى توبة كان والفرصة إلهي سبحانه وتعالى توبة كان انت هذا سمين حاسد عاي إنه كان غفار الله سبحانه وتعالى وحو نقضي وحو هذا ولي سنيه هاي مد من بدن انت هذا سمين محد عاي يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الله سبحانه وتعالى وحو لي هذا ساس سميسانه واستغفارته بديسان إلهي سبحانه وتعالى عركة أيو روب بدن إني كسو دجنايا waxaa maqlaysaa waddankan abaar baa ka dhacday waxa weeye haddii loo noqon lahaa Allah subxaanahu wa tacaala oo waxyaalaha lagu jira maanta la iska dayn lahaa waddankeena oo ilaahay loo toobadkeen lahaa roob Allah subxaanahu wa tacaala ma siin lahaa roob Allah subxaanahu wa tacaala in siinaya maal badan buu Allah subxaanahu wa tacaala in siinaya carruur badan buu Allah subxaanahu wa tacaala in siinaya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara u fiirsa ikhwaani istighfaarta oo la badiyo استغفرت الله بديا وحيالها إلهي سبحانه وتعالى إرزاقنا كوكو سيادنا ويان وحلا وريا أثر بالا وريا ننوي من حسن البصري رحمه الله تعالى من فقهاء تابعينها وحقول لي هي شكى رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى نبأ أيمي حسن البصري أو الشاكتي محوغ الشاكتي شدة الجلد يعني أبار درن أو جرته يو النقص الماء به أو يراضي به وانا غير راضي أبار بدن وجرته حسن البصري رحمه الله تعالى وحكو يري فقال له استغفر الله وحكو يري إلهي وتوبت كيم كير إلهي سبحانه وتعالى استغفار لا إموبي بس وحكى لها سمين سو روبلان كما هيسو سو أبار كما هيسو سو بيلان كما هيسو إلهي سبحانه وتعالى الدم لا فوجش نيك وكتك وشكل آخر نيك لا يمي وشيغنايا ودعونا حسن البصري وشكل آخر الفقر كلام مثل لا يميو وحو شيغنايا اسمه فقري بها يبير طبعا بفقر الله فقري بقى يقول دعي ما سميا فقال الله استغفر الله وحكو يور الله وتوبت كان إلهي الدم لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفرت بدي ما كستا جوجته استغفرت بري نكاسن وكتغي وقال ثالث مثل أي مسدحات بايمين مركز وحكو يا أبا سعيد ادعو الله أن يرزقني ولد واحد يبرد الله سبحانه وتعالى إنه عرور أسيه محايا فإني عقيم عرور مليه بجري مدلا يسبانه عرور ما هيسته عرور يمدلا مركي أبا أبا سعيد حسن البصري بالله الله إلهي سبحانه وتعالى إيبري سي الله سبحانه وتعالى إيسي عرور إيسي صمارتان حسن البصري مركب حسمي ما حاون برين حسن البصري وحا ويري فقال الله استغفر الله والإلهي يدم بداف ودي سبيل إلهي وحا ودي سدم بداف ودي استغفر الله إلهي سبحانه وتعالى كل نبي وإلهي سبحانه وتعالى دم بداف ودي وشك الرابع جفاف بستانه نكلا يميو بيرتي سو كقل شيء أي ودعوه وشكتي مركزي فقال الله استغفر الله أدقنا إلهي سبحانه وتعالى دم بداف ودي فقال أحد جالسين رجل لفدي نكم ذا حسن البصري وحكي رحمه الله تعالى وحكي أتاك رجالا رقبا كويمي يشكون أنواعا فأمرتهم جميعا بالاستغفار رقبا كويمي كل متكستان وحيالك لدوان بيكو شكتان وحيالك لدوان شكتان واحد نكتري محي واحد كتري كل جندن بلا فلو وديست فقال حسن رحمه الله تعالى حسن البصري مركب وحكي جواب يري
مياذا مقلب إلى الله سبحانه وتعالى قرآن كأنه كيري فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آيات آخرين. والقرآن كماذا كم مقل إن الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى استغفار ويديستا إله وين مدافع عرب بنسينا مال بنسينا جنوي بنسينا روب بالنسينا الله سمورا وفرس هل كاس كلا صباح استغفار مرك هذا بدي سمرك ولا إلهي سبحانه وتعالى إرساقته وكوس يدنا إرساقت في عنا الله سبحانه وتعالى وكوسينا أي إله توبت كانوا ذنوب أن كجرنا الله سبحانه وتعالى أو توبت كانوا أو ذنوب أن كبحنا ويان سي الله سبحانه وتعالى نوصيه أما نوجو بدي وحلو يقانه إرساقت الله سبحانه وتعالى سيدو كلا واحد كم ده وحيالها إلهي سبحانه وتعالى إرساقته كوسياديه أو إلهي إرساقته كوسيادنا أيه وحويان الله سبحانه وتعالى كعبسته الله كعبسه قرآن الله سبحانه وتعالى وحو كل يهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا الله سبحانه وتعالى كعبسته إلهي سبحانه وتعالى مخرج يميل أكبحنا وكسينيا ميل آذن كفلين إرساقات آذن كفلين الله سبحانه وتعالى كسينيا ابن كثير رحمه الله تعالى مركو آيادا شرح يوحو ليهي ومن يتق الله فيما أمر به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من جهة لا يخطر بباله قفك الله سبحانه وتعالى وحو أمري لي ماذا وحو كرهبنا كتغا إلهي سبحانه وتعالى ميل أوسن كفلين أيو كإرساقيا ميل أن وليس قلبي كسو دعين أنو كفكرين بالله كإرساقيا التقوى إلهي سبحانه وتعالى كعب صنه والله سبحانه وتعالى كبغنه ووحياء الله سبحانه وتعالى ساقدنا وسينه ويان قرآن كمركو الله سبحانه وتعالى نقول ربي وحول لي الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بلو في إخواني وحول لي الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا هدي أي قلم ميل دقني ودن ميل دقني هدي الله سبحانه وتعالى كعب صدان والله سبحانه وتعالى كبغان لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وحنفر لهين أو سين لهين خيرات كعيرك يقول كان سين لهين ولكن كذبوا لكن وي بينيين فأخذناهم بما كانوا يكسبون لكن وي بينيينو وحنو كقبرنا وحي كسبدين هذين إلهي سبحانه وتعالى كعب صن لهين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا بل ودك ينفيري هذين الله سبحانه وتعالى كعب صن لهين وإلهي سبحانه وتعالى سدي بلهن لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إلهي سبحانه وتعالى نوفر لها دولك إركب خيرات كسو نوفر لها لكن مع عقاب كان ما أنت محويها نهيستا ولباتن كاسنو ودن كين محا دبتان عقاب كان أجرى ما أنتي وإلهي سبحانه وتعالى نوع عقابيا ووحن قعنت كل نبويان ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وحن كسبنا الله سبحانه وتعالى نوقب تويان عندنا الله مدل ميوه وإلهي ظلم مايه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلهي سبحانه وتعالى ظلم أنا قاس ظلم مني ودن كيو أو نبت كجرة أو برواقة كجرة أيان ظلم لنمي ظلم ما أنت سان نوقص الله سبحانه وتعالى يعني هير كما أنت أمرينه إلهي سبحانه وتعالى نجارسي إلهي نغننا الله بركات السماء والأرض نفر له وحولي الله سبحانه وتعالى مركو كهلا يه لئن شكرتم لأزيدنكم هداد إلهي سبحانه وتعالى كل شكردان ووحد يسيء الله كل شكردان والله وقبقدان إلهي سبحانه وتعالى وكوز يدنايا الله سبحانه وتعالى ونوس يدنايا عبد الله بن مسعود بآيات آخرنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كهلا يحوليه عبد الله بن مسعود ويان رحمه رضي الله تعالى عنه وحوليه إن أكبر آية في القرآن فرحا ومن يتق الله يجعل له مخرجا آيات القرآن كجرة آياتها القرآن كمدة وغفر حد بدني وحوي آيات أن تلمان نوي ومن يتق الله يجعل له مخرجا هذا الله كعب سطو الله مخرج بكسينيا ميل بكفر يا إخوان أفر صدق إلهي سبحانه وتعالى كعب صنو أنت سني مانو أي الله كعب صنو الله أتوبت كأنه والله بالله ثم تالله إلهي سبحانه وتعالى ودن كاس ما نبو الله نوحس الله لكن امتحان نوصعده إلهي بأن امتحامية امتحان كمرك وحنا قبح كرنا إن الله أتوبت كأنه إن الله سبحانه وتعالى نقنه إن الله سبحانه وتعالى إن دبنا في وجه سنه لكن دنبقي من سيوني مسلم يا قال سوقنا ودنك وحويا ودنك الله سبحانه وتعالى غير الله بل عابدا اسكدا wax kale waagi hore aynu joognay wadanka Soomaaliya la joogo fiicnaaba waxaba la oran karaaba gaalo yaani ilaahay kuma caabudeyn laakiin maantay gaala ilaahay ku caabudaysa ilaahay caabudeyn way naqaan markay leeyihiin laan ilaahayda caabudaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ma sanan bay caabuda geysteen ciisa ku ilaah ku sheegteen ku aan diin lahayn baa jooga subhanallah
ciqaabka Allah subhanahu wa ta'ala uga baxayna waxa weeyaan in Allah u noqono weeyaan waxyaalaha qofka u siyaadiya risqiga Allah subhanahu wa ta'ala daarto Allah irsaaqana ku siyaadiyo waxa sameyn kartaa waxa weeyaan ina qaraabadaada xiriiriso qaraabada oo la xiriiriya waa waxyaalaha ama sababta Allah subhanahu wa ta'ala ku siyaadiyo risqiga Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam Abu Hurayra wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam waxaan ka maqlay isagoo leh man sarrahu an yubsida lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu qofkii raba oo ay farax gelinayso qofkii ay farax gelinayso in risqiga Allah subhanahu wa ta'ala u siyaadiyo cimrigana Allah subhanahu wa ta'ala u siyaadiyo u barakeeyo ha xiriiriyo qaraabadiisu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam hadith Bukhari baa wariyay riwaayadka hadithka ka duwan waxa leedahay man ahabba minkum an yubsada lahu fi rizqihi qofkii jecel in risqigiisa loo siyaadiyo qofkii jecel in risqigiisa loo siyaadiyo oo loo fidiyo wa an yunsha Allahu fi atharihi cimrigiisana Allah subhanahu wa ta'ala u barakeeyo wa an yuzada lahu fi umrihi cimrigiisana loo siyaadiyo falyasil rahimah qaraabada la xiriir qaraabadu aan la xiriirin ciqaabba Allah subhanahu wa ta'ala ku keena adduunka marka la joogo nabiga xadiis wuxuu ku leeyahay dambi in Allah subhanahu wa ta'ala ciqaabtiisa ku soo dejiyo adduunka oo ka daran ma jiro waxa loo yaqaano qaraabo goyska qofka hadduu qaraabada gooyo adduunkan ciqaab baa loogu keena oo macdaalika tii akhrina sugaysa saasa nabiga kaleey salaatu wasalaam leeyahay dunuubta dhamaantood waxa weey Allah subhanahu wa ta'ala qofka uu kaadiya maalinta qiyaamada loo kaadiya oo lagu suga laakiin waxa la yiri qofkan la iimaanaya qaraabo goyska waxa weeyaan adduunka ciqaab loo keenaya weeyaan marka qofkii raba Allah subhanahu wa ta'ala inuu risaaqad ka helo cimriga Allah subhanahu wa ta'ala ku siyaadiyo ku barakeeyo qaraabada xiriiri waxa kamid ah waxyaabaha qaraabada waxyaalaha mataqaan risqiga lagu siyaadiyo waxa kamid ah al-infaaqu fi sabilillah jidka Allah subhanahu wa ta'ala lagu bixiyo meel kasta oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jidkiisa oo wajuhda khayrka ah in wax lagu bixiyo ha noqoto dalabatul cilmi ha noqoto masaajid wax lagu bixinayo ha noqoto madaaris ha noqoto dad mataqaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala kalimadiisa kor noqoto isugu yimi ina wax ku bixiso oo waxyaalaha Allah subhanahu wa ta'ala irsaaqadaada kugu siyaadinayo weeyaan waxa uu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wax kasto alla baxdaan Ilaahay baa maanta inaga marnayo oo wax kale ka fiican sinay weeyaan وهو خير رازقين إن كستو وح بحساء أو وح يرساقدا الله سبحانه وتعالى بأو ونكسن ابن كثير رحمه الله تعالى مركو كهل لي آيات سوح لي هي أي مهما أنفقتم من شيء مما أمركم الله به وأباحه لكم فهو يخلفكم ويخلفه عليكم في الدنيا بالبدل مركزتو الله بحضان الله سبحانه وتعالى وحيد أمره وحكلا بحضان أو وحي الله سبحانه وتعالى بني أو وحكلا بحضان الله أدونك مركز جوتان بدل بين السنايا وفي الآخرة بالجزاء والثواب آخر مركز تكتانا إلهي سبحانه وتعالى أبا المذنب بين السنايا أبا المذنب بين السنايا بقول فرس أدونك يا آخر ذا إنفاق الله إيمان يسد وحب بحين يسد إذا قد أدونك الله وخوص زيادنا آخرنا جنة كويسة بقول فرس إخواني وحياة نوع عاصم مركز حل دونا يويان قف إنه كد ذاله سير ساقد الله سبحانه وتعالى أقول سياديه والله سبحانه وتعالى ساقد سيه والنبي عليه الصلاة والسلام حليه هي إلهي سبحانه وتعالى بوحيري يا ابن آدم أنفق وحبه أنفق عليك والله هنا لو سينايا الله مركا وحبه صه أيا وحلو سينايا مركا أو حلب حضه وإلهي سبحانه وتعالى وجود خير كونه بنيي أما مسكين هالنقطة أما أجور هالنقطة أما مساجد هالنقطة أما خير كسته هالنقطة مال كسته في سبيل الله هذا وحكم بحسه وحوليه هي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى وحيري مرك بحبه يري أنا كسينايا الله سبحانه وتعالى وسأرنايا النبي عليه الصلاة والسلام حاسس سمعت منه حكيري ورمالك هذا يستهويلين وإلهي سبحانه وتعالى كهويليه مالها كقرن إلهي وكاه النبي وحكسين الله وحبه الله سبحانه وتعالى وكسينايا وحيالها لو هلو ويان الله سبحانه وتعالى لو جاره وناجيس يا خيرك الله سبحانه وتعالى لو جاره ويان وأرساقد إلهي سبحانه وتعالى لو فيديو وحكم ده وحيالنا تصايا إنفاق إن الله سبحانه وتعالى مصدقنا الله بحايو إن الله وحنوجس زياديو نبي عليه الصلاة والسلام حديث بوح كله هاي ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان مالن واجو بريا مجره إلا لبقف لو ملك بسود جايه مالن واجو بريا مجره وأدومه وبرستان إلا لو ملك بسود جايه مركز نبي عليه الصلاة والسلام وحليه هاي ويقول أحدها متكذ وحورنا يا
اللهم أعطي منفقا خلفا إله قفك وحلا بحي إله يقفك وحلا بحي أو وحبح صدي إله يبدل كيساسي ملك بعد دعينيه ملك بعد دعينيه إله قفك وحلا بحي بدل كيساسي كان كلنا وحورنا يا اللهم أعطي ممسكا تلفا إله قف كان مال كيسا مال كوغر صدي أو إسكاه يستمال كيسا إله يو وحوي بابي أو تلف سويا بروفيسور مرك waxa ay la baxayno irsaaqada la baxaysid ilaahay baa ku siiyay maalkaaga ilaahay subhanahu wa ta'ala irsaaqad baa ku siiyay asbaabaha noocaas tilmaamayno qofku waxa la rabaa inuu la yimaado sida Allah subhanahu wa ta'ala irsaaqada ugu siiyay waxa kamid ah nabiga cali sallallahu alayhi wasallam tilmaamaya mar alla markaynu masaakiinta wax siino ilaahay subhanahu wa ta'ala waxba ku siiyay wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam leeyahay hal tunsaruuna wa turzaquuna illa bi du'afaikum war maleedinku gargaaraya gargaar ma ku helaysaan irsaaqadna malana ku irsaaqayo irsaaqad ma ku helaysaan illa bi du'afaikum dadkina taagta daran mooye dadkina du'afada ah oo masaakiinta ah oo tabarta daran mooye ma meel kala bad waxaan ku helaysaan Allah subhanahu wa ta'ala marka dadka wax siiso Allahna wuu ku siinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ku siinaya waxyaalaha kamida marka qofku Ilaahay subhanahu wa ta'ala irsaaqadan u siiyay waxa weeyaan tawakkulka Ilaahayna tawakkasho weeyaan Ilaahayna mar walba tala saarsato ina markaad shaqo aadaysid alla tala saarso إلهي سبحانه وتعالى وكوها جنا شقاد هذا إلهي سبحانه وتعالى وكو إرساقيا نبي عليه الصلاة والسلام وحليه لو أنكم تتوكلون حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أنكم تتوكلون حق توكله حتى ثلاثة سنة الله هيدين الله سبحانه وتعالى ثلاثة سيجي نبتة حتى الله سبحانه وتعالى ثلاثة سنة الله هيدين لرزقكم وإرزاق لها الله سبحانه وتعالى كما يرزق الطير الله سبحانه وتعالى سوء إرزاق الطير يعني شمبره كله سيلو إرزاق شمبره تغدو خماصا صباح دي بحيس إذا بغلالا قاجة هيسو بس صباح دي بحيس دوليسا مين الحكومة أوجا مين الحكومة أوجا واسكت قاجسي بول كيدي أما جوري كيدي بكبح ذي تغدو خماصا ويبحث مركز بغلالا وتروح بطانه وحصل الله بنيسا يدو علوش دي أي وين تهايو ومعناها السودر تيمانسا marka hadii Allah subhanahu wa ta'ala tala saarsano Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nasiinaya oo noogu bedelaya oo waxa weey nasiinaya irsaaqada Allah subhanahu wa ta'ala waxyaalaha wala doonaya marka in irsaaqada qofka lagu daro yaani kugu sii waxa kamid ah dadka dalabatu cilmiga Allah subhanahu wa ta'ala raadinaya hadii aad wax ku bixiso Ilaahay subhanahu wa ta'ala noogu siinaya waxa daliil ah حديث ترمذي غير كسو صاريان بأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحليه هي لبن أو ولا لا أبا جري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم متكود نبي إيمان جري لبن ولا أبا جري حلي النبي متكمدي وحو إيمان جري النبي عليه الصلاة والسلام شارح حديث كان وحليه هي أنه يأتيه لطلب العلم نبي إيمان جري سو علمي نبي وقاته نبي عليه الصلاة والسلام سو علم وقاته إيمان جري والآخر تحترف ككلا وحوها نين وحوي سكيلز استعماله أو وحوي صوش شقيسته أو شقق عند سكقب صدبوها فشكل محترف نكي يعني قعنتي سكشقي سنجري أيا نبي عليه الصلاة والسلام ويمي ودع ولا الكس نبي عليه الصلاة والسلام هو الجواب لعلك ترزق به قول في سخواني لعلك ترزق به وحل غيابا إن إلهي سبحانه وتعالى وهو إرساق يابا ويلك أضو حسينيسد إنه الله هو إرساق بلغ يابا نينك طلب علمي كجرة أو حسينيسد إن الله سبحانه وتعالى هو إرساق لغ يابا ورهدينو ددك ودنكي جوغي Soomaaliya jooga aynu dad masaakiina meel ka ognahay wax yar adu qorto bil walba u dirto masaakiina ama agoona u dirto ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kugu bedelay khayrka kugu bedelay ilaahay uu kugu irsaaqay mar alla marka wax soo masaakiin siiso ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa way waa ku irsaaqaya irsaaqadana ku badnaya lianna allah subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan allaha kaliya oo irsaaqo weeyaan laakiin naw irsaaqadeeni alla nasiye intaynu maalkii urursanay oo aynu meel dhiganay oo aynu gashanay oo masaakiintii aan waxba la siin baynu mid kala raadinayna waxna deeqaya ma jiraan nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu hadiis ku leeyahay law kana libni aadam hadii ibn aadam kullahan laha waadiyan min maalin wal firsa hadiiskaas ibn aadam ku haduu lahan laha laba tog oo maal haduu lahan laha oo dahab iyo wax walba ah
oo yacni intaas oo waadi oo dahaba hadduu haysan lahaa muxuu samayn lahaa ibni aadamku nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay labtaqaa waadiyan thalitha wuxuu dalbi lahaa tog kale oo saddexaad buu dalbi lahaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacala ibni aadamka siin lahaa yacni laba tog oo waaweyn oo maala hadduu siin lahaa wuxuu raadin lahaa ma saddexaad buu raadin lahaa bal firs ikhwaani nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu walaa yamla'u jawf ibni aadam ibni aadamka calooshiisa ma buuxiyo ila turaaba ciid may wax kala buuxinaya ma jirtaan wayatuubu allahu calaa man taaba ilaahayna subxaanahu wa tacaala ilahay subxana wataala wuxuu ka toobad aqbalaa cid kasta u toobad keentay cid kasta alla subxaanahu wa tacala u noqotay ayaa alla subxaanahu wa tacaala ka toobad aqbalaa arrimaha aynu soo sheegnay dhammaantood waxayna tusayaan oo noo sheegayaan habka alla subxaanahu wa tacaala irsaaqada u siyaadiyo waxaa la doonaya marka qofka mu'minka ahi siiba dadka khaasatan qurbaha jooga inay ka fogaadaan waxyaalaha xaaraanta ah waxyaalaha xaaraanta ka fogaadaan waxaa ka mid ah ribada ka mid ah oo ilaahay subxaanahu wa taala qur'aanka isku tilmaamayo aladiina ya'kuluuna الriba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabatuhu shayطaanu min almas qofka ribada cuna oo ribadii ka dhergaaya waxa weeyaan maalinta qiyaama marka qabuuraha laga soo baxayo si isagoo qof walana soo baxaya buu leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala xadiiskana wuxuu leeyahay calooshiisa oo buurta uxud leeg buu soo baxayo qofka isaga ah wadamadan qurbahana waxa weeyaan waxa batay dadka maaratay waxa loo yaqaan ribada cunaya dadka ribada cunaya ayaa batay ilaahay subxaanahu wa tacaala inaynu uga cabsano oo Allah subxaanahu wa tacaala uga baqno weeyaan inaan ribada iska ilaalino weeyaan han noqoto ganacsiga sameynaysid ina culimada weydiisaan weeyaan haddaad rabto inaad ganacsi samayso inaad culimada weydiiso weeyaan haddii aad rabto inaad macaamil kala samayso waa inaad ogaato diintaada waxa xalaasha ka ah iyo waxa xaraanta ka ah nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo Allah subxaanahu wa tacaala waa noo cadeeyeen saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihiin shimbir samada duulaya ma jiro ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu nooga warramay yani waxay ka wadaan wax xaaraan iyo xalaal kulli waa la cadeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaamna xadiis wuxuu ku leeyahay ina alxalaala bayin wa ina alxaaraama bayin war xalaashuna waa caddahay xaaraantuna way caddahay xalaashuna way caddahay xaaraantuna waa caddahay marka nabigu intaa kuma harin wuxuu yidhi wa baynahumaa umuurun mushtabihaatun dhexdoodana waxa ahaaday arrimo maaratay isku dheehan oo aan la kala garan karin ma xalaal baa mise waa xaaraan weeyaan laa yaclamuhuna kathiiru min annaas dadka intooda badanna ma garanayaan wal fiirsada adduunka iska dhex galaysaa kanu ma xaaraanba kanu ma xalaalba ma kala taqaanin ومع ذلك با الله نبي عليه الصلاة والسلام leeyahay dadka intooda badan ma yaqaanin marka waxa la doonayaa wax kasta oo shakaaga jiro inaad iska ilaaliso oo waxa weeyaan aad dadka culimada weydiiso dadka salafka ahaan jiray wax yar oo xalaal ah ay ogi bay shakihan ay ka shakirayaan inay xaraan ku jirto bay ka tagi jireen oo warca weeyaan haddii xaraan loogu sheegana waxa ma ka sii daranba Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ayaa maalimaha kamida waxa loo keenay nin baa wax u keenay oo sayid u ahaa oo adoonkiisa ahaan jiray ayaa wax u keenay cunto u keenay markuu cuntadii cunay buu wuxuu ku yiri Abu Bakar oo ma garanaysaa cuntada cuntay meeshan ka keenay markaasuu yiri may xilligii jaahiliyada ayaan waxaan ahaan jiray faalow baan ahaan jiray kaahin baan ahaan jiray nin baan waxaan u sameeyay marka faalka u sameeyay faal baan u sameeyay ninkii lacagtii waaga ima siin hadduu lacagtii keenay lacagtii baan cunto ka soo gada ku keenay Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu gacantiisa ayuu afka gashay caloosha wuxuu ku jiro banaanka soo saaray bal fiirsada waliba cudaar buu leeyahay wuxuusan ogeyn buu cunay caloosha gashay cudaar buu leeyahay gacantiisa intuu afka gashay ayuu soo matajiyay oo wixii caloosha ku jira banaanka keenay markaasuu wuxuu yiri wallahi luqmadii aan cunay hadii ayaan soo bixi lahayn ilaa ay naftayda soo baxda mooyee la akhrajtu soo bixin lahayn مع نفط صوب حلابي لغمدي أن عني هذا أي صوب هذا إلا إن نفط صور على مويه والله وصور عسل لهابي إلهي إنه وبغنه إلهي سبحانه وتعالى إنه وبغنه خاصة وحن الله يا ذاتك إنه قربها الجوجة إلهي سبحانه وتعالى كعبصنا إلهي إنه وبغنه وياه ومع ذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام وحليه هاي ومن اتقى الشبهات قفك إسك إلى عليه وحيا لها الشبهات كجره وأنا قفك لا جرن كريم وحنا هم حلال بقى مسوى حرام قفك مركز كلا جرن كريم oo shubhaad ku jiro nabigu wuxuu leeyahay qofka istagaahay wuxuu bari yeelay
diintiisa iyo sharaftiisa bariyaan diintaadii iyo sharaftaadiiba waa baryeesh nabigu tusaale ay fahmi karaan dadku buu keenay wuxuu leeyahay wa inna likulli malakin xima buu leeyahay boqor kasta oo adduunka jooga meel seero ah oo aan la geli karin buu leeyahay wa inna xima allahi maxaarimuha ilaahay subxaanahu watacaala ximihiisa iyo seerihiisuna waxa weeyaan maxaarimta weeye in la iska ilaaliyo meelaha xaaraanta alla ka dhigay waxyaalaha xaaraanta ah oo lagu yidhaha gelin inaa iska ilaaliso weeyaan saas ahaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu soo maray timir buu soo maray meel taalla qol fiirsa waa timir meel taalla weeyaan markaasuu wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam sen la soconno ma cuni jirin nabigu sadaqada ma cuni jirin way ka xaaraansaneen marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi timirtan iyada ahay buu yidhi waan cuni lahaa haddaanan ka baqay inay sadaqa noqoto haddaanan ka baqin inay sadaqa noqoto cuni lahaa buu warac u fiirsa si uga tegay soo maartaan adduunka marka waxa lagu keena waxa weeyaan ina Allah subhanahu wa ta'ala cibaadaysto u cibaadaysto waxa la doonayaa marka ina raacdo waxyaalaha Allah subhanahu wa ta'ala ku amray ina raacdo oo ka harto waxyaalaha Allah subhanahu wa ta'ala ka reebay ina iska ilaaliso waxyaalaha Allah subhanahu wa ta'ala ku diiday waxa la doonayaa weeyaan Allah subhanahu wa ta'ala in ka wada cabsano nafteena ka cabsano irsaaqaduna waxyaalaha qofka waxa weeyaan baabiisa u diida waxaad cunaysid waxaad cabaysid waxaad gashanaysid ووحياة ديدا يا الله سبحانه وتعالى إنه كأقبل بريديسا نبي يقول حلية نبو نبي كور رمي سفر كجرة سفر بكجرة ميلبو فريست إله بريايا وحكم مغضب بصاص بكم مقطع سفر نبو كجرة وحالذه الله سبحانه وتعالى وكو أقبل بريدك وأقبل وياه والله فرصة بك النبي عليه الصلاة والسلام وحجري ننكا إسقاهي أو إلهي بريايا أو قعما كرو تاجي وحو صوعنا وحرام ويان وحو سوعة بحرام ويان نرهو كشيء حرام ويان فأنا يستجاب له سيدي بالله أقبلية سيدي بالله أقبلية وعارك إسلام مسلمين تمانتي أنت إلهي نبرينه إلهي وحنص إلهي محا دعي محا كوسكري وما دعوة لغا أقبل واي وبري لغا أقبل واي أنت ضدك وحوي وحمودا موضوع أورانك أنه كله ويانه لكن ضد بدن وحاران عنا نجران ويان ضد بدن وحاران عنا أياجر ويان لأن بريض الله سبحانه وتعالى بريسد وإن واحد عنيسا وحلال أي تاه واحد استعمال يسي حلال تاه حاران تدمان تد إنا بناك كمرته أو كعرة قفك مسلم كابل الدنيا إرساقات دادين حالك ريتويا وأنا صوت المامي أو النبي عليه الصلاة والسلام وحو نوشة ما نت قيامها إلهي سبحانه وتعالى وكو دينا مالك ماشي كلتي مال ودينا حياكم بحسن ودينا مالك ورما قبيل يقولون بعض كب بحسن اسكو بابينايو ورما هو بيوحباه قدر اسكو بابينايو الله سبحانه وتعالى وكو دينا war Allah subhanahu wa ta'ala kalimadiisina kor noqoto miyaad ku bixisa maalkan alla waa ku wadiinaya maalinta qiyaamaha imaanaya maalinta qiyaamaha Allah subhanahu wa ta'ala istaagaysa markaas waxa lagu wadiinaya maalkaaga xagee baad ka keentay iyo meesha aad ku bixisa lagu wadiinaya naftaada waxa la doonaya marka inaad u daasho weeyaan waxyaalaha marka maanta la doonayo in la nimaano waxa way waa amalka aynu aakhira u shaqaysanayno maalinta aakhira aadno Allah hor istaagno oo yawma yaqumu an-naasu li rabbil alamin ay tahayna waxa lagu hor keenaya waxa way amalkaaga weeyaan يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد وحول الله سبحانه وتعالى ما أنت قيامها هي أو لتقيا وما أنت النف اللي بوحي أي سوشق أي عمله لو كين أيه والهور كين أيه وحي حمان أي سمي سنة وحي جعل سنة يسا إذا أي حمان تاسب إلا كلفوقيه أو لكلقيه أمدا بعيدا meel uu saka arkin la kala geeyo markaas Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa yuhadhirukum Allahu nafsah Ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu idinka digaya Allah subhanahu wa ta'ala uquubadiisa iyo cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa idinka digaya wallahu ra'ufun bil ibad Ilaahi adoomadiisa waa tura Allah subhanahu wa ta'ala min noo turid badan weeye Allah wuu noo turaya ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum Ilaahi subhanahu wa ta'ala cadaabkiina waxba ku farimayo hada Allah u noqotaan oo Allah subhanahu wa ta'ala ku shukridaan oo Allah subhanahu wa ta'ala rumaysan ilaahayna ka cabsano oo marka aynu hagaajino waxaynu isticmaalayno risqiga aynu cunayno waxa aynu shaqadan ka shaqaynayno inaynu Allah subhanahu wa ta'ala ugu dhawaano weeyaan wixii nabiga Allah ka reebay nabigu ka reebay ilaahna uu ka reebay ina khatata weeye hadii aadan aqoon fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun dadka culimada weydiiyo war waxaanu maxalalba war waxaanu maxaraanba ina tirada laga maarmaan weeyaan ina tiraan war waxaanu maxalalba war waxaanu maxaraanba ina tiraadaan waa laga maarmaan dadka muslimiinta weydiisan weeye ilaahi subhanahu wa ta'ala ka cabsataan
intaasaan kusoo gabagabaynayaa والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وجزاكم الله خير وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين